Warbixin baafin, madaxweyne ku-xigeen waqooyi bari Soomaaliya. Waxaa la raadinayaa xog ku saabsan halka uu ku sugan yahay madaxweyne ku-xigeenkii dowlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya oo aan ilaa hadda si rasmi ah loo shaacin halka uu ku sugan yahay. Wararka la helayo ayaa tilmaamaya in markii ugu dambaysay la arkay 2 bishii Februari xilligaas oo uu ku sugnaa magaalada Nairobi, caasimadda dalka Kenya. Tan iyo wakhtigaas ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay xafiiskiisa ama hay'adaha dowladda oo caddaynaya halka uu ku sugan yahay ama xaaladiisa. Qoyska, saaxiibada iyo shacabka ayaa muujinaya walaac ku aadan maqnaanshihiisa, iyagoo dalbanaya in la helo xog sugan oo ku saabsan badqabka iyo meel uu ku sugan yahay. Cid kasta oo haysa xog la xiriirta arrintan waxaa lagu boorinayaa inay la wadaagto hay'adaha amniga ama maamulka ay khusayso si loo xaqiijiyo xaaladda jirta. Ugu dambayn, waxaa muhiim ah in laga fogaado faafinta warar aan la hubin, lana sugo xog rasmi ah si loo ilaaliyo xaqiiqda iyo kalsoonida bulshada. Halkani waa Arka Huwanta Media.